محمد باشار قال وعنا ونكسن أيام كلية هاي إن هذه داودياش يارتين بقى إن مرة هورا دانك حاجة ورمي حالات دجودة مجالات برع شو ومن دجن حاجة دقالة حاجة وحبرشية حاجة عفيمات بقى إن ساك هذا الحين توجود بدل مجالات برع كتاجن إن لو أنا يهد مركب حكومة الصومال لانقوا مكسر صارتي اسكو بدل كالعجها إن ساعد قيمة الدولار كأي توجسي إن هذا بقى عصتها كل الدول يكون غير مجالات برع iyo shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan gaar ahaan magaalada Burco ayaa waxa kala haysata carqalad xagga kala iibsiga ganacsiga oo aanay ganacsatadaasi ku qaadanayn lacagtii cash tahay ee ay dalka lahaa balse ay doonayaan dollar hadaba barnaamijka hargalka arteen waxa la hadlay mid kamida ganacsadayaasha ku dhaqan magaalada Burco uga warbixiyay say kala socdaan mashruucaha kala duwan ganacsiga iyo sidoo kale in halka uu marayo isku bedelka lacago bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay hadii aad tihiin bahda telefishinka RTN aad iyo aad baan idin salaamayaa waa ku mahadsantiin booqashadana soo booqateen ee maanta nagu soo booqateen meherad kamida meheradaha suuqa weyn ee magaalada Burco hadii aan ka hadlo dareenkayga ku saabsan hawshan saadka ee la joojiyay iyo sida ay saameynta ugu yeelatay guud ahaanba suuqyada kala duwan ee Soomaaliland run ahaantii saadu waxay ahayd hawl aad u muhiim ah ama fududeeyo muhiim ah oo ganacsiga ku jiray waxay ahayd mid kamida waxyaabihii aadka ugu fududeyn jiray bulshadu inay wax iibsadaan tusaale ahaan haddaan tusaale soo qaato usbuucii imika ay taagnayd suuquna uu taagnaa waxa guud ahaanba khadka ka baxay sarifkii lacagta waxa guud ahaanba adkaatay helitaankii dollarka dadka inta wax iibsanaysaa waxay wax nagaga iibsadaan shilinka Soomaaliland ha haatee shay kasto oo aan suuqa ka soo iibsanayno ama aan dabada u dirsanayno wuxuu ku yimaadaa dollar lacagtii laantayda ee aanu ka ururinay usbuucii ay wax weeyaan saadu khadka ka baxday deeyadoo 20 milyan ay meherada iska dhex taalaa cid wax ku furaysa haba yaraatee ma jirto meherad ka qaadanaysa ma jirto meheradii aan lacagta nagu lahaa guud ahaanba ma ka qaadanayaan waxay ku oranayaan ama dollar la kaalay ama lacagtu kugu qornaato oo sideedii hore ha ahaato marka runtii waxaan oran karaa saadku wuxuu ahaa mid kamida fududeeyaasha waaweyn ee ka qayb qaatay ganacsiga Soomaaliland marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda Soomaaliland in ay lacagta saadka dib inoogu soo celiso mar haddaan bedelkeedii haynin mar haddaan banka Soomaaliland ee dhexe aanu ahayn mid shaqeynaya oo bulshadii wax u sarifaya lacagtii halkii bay taagan tahay dollarkuna khadka ayuu ka sii baxay awl hore tusaale ahaan intii usbuucii la bedelay ka hor waxaan ku qaadanaynay milyan iyo 20 ayaa $100 suuqana laga soo siinay halka imika aanan milyan iyo 100 ku helin $100 marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in saadkeena ay dib inoogu soo celiso kaasaaba malaa itaalka wax weeyaan ka wanaagsanaa habkan imika loo shaqeynayo sababtoo ah waxba la kala iibsanayba in marka adiga kamaradahan isaameynta lag ku yeelatay run ahaantii saameyn aan caadi ahayn mid xoogaa bay ugu yeelatay sababtoo ah suuqu de wuxuu ku kala shaqeyn jiray text message-ka fariimaha shirkadda Telesom ayaa lagu shaqeyn jiray oo wax weeyaan lacagta wax lagu kala iibsan jiray markay fariimii khadka ka baxeen aan dollarna lahaynin wax lagu iibsadayna uu la noqday item kasto meherada yaaloon iibinayaana uu dollar aniga igu soo galay lacagtii laantayde halkan aan iska dhigay iyadoo waraaqaaba iska taala cid waxay siisanaysaana ma jirto meheradihii aan alaabta ka soo iibsadayna mid waliba dollar buu wax ku doonaya matalan moobiladoo kale markii aan maanta sidii lacagta u dir nin bil matalan moobilada noo soo dira aanu sidii lacagta u dir de wuxuu igu soo jawaabay aanu laan ma doonayo waxaan ku iri milyan iyo 100 haddaan kugu siiyo $100 ka waran halkaas aan la gaaray inaan milyan iyo 100 ku iraado hatta milyan iyo 100 kii la igu sarif waayo marka run ahaantii meherada saameyn weyn bay ku yeelatay saadkii la joojiyay maadaama tahay mid kamida ganacsadayaasha ku dhaqan magaalada Burco ee haysta meheradaha dawladda marka Soomaaliland marka hore waxay ku eedeysay in shirkadaha Telesom iyo Somtel inay sixir bararka ka waqti sixir bararka isaga maxay iska bedelaan run ahaantii waa su'aal aad u fiican markii hore dawladdu waxay ku aadeysay shirkadda Somtel ama Idahab iyo Telesom qaybta saadka inay iyagu ka kow yihiin sixir bararka عدة مسؤول كاهن سحرك وسراو كعو نا يجيهين لكن هذا واحد عطاتي إن أنت سجبيهان بقى يهيد وحن شرينا ما يهيد هل بعد لقول زي هذا صوب حضي إن سات كيد هبكوا يا هاين ميت كم يضفوا ده شجنا عسجة بل سأنا كي غيب قاعدين إنه جبيهان بيستاجو سحركوا أما سحركوا وسراو كعو يجوا جبيهان وح شقاكوا ما يلهين
markaas xir bararkii wax ma ka dhintay mise kor bedelahay dema wax waliba way qaali garoobeen shaakirow wax waliba halkii ay taagnaayeen maanta waa ka qaalisan yihiin sababtoo ah xabadda moobilka ee $70 siinayay maanta waxaan ku khasbanay inaan $80 siiyo sababtoo ah waxa weeye bal waxaan ku dadaalayaa xaggan laanta ay ka kala kacday inaan xaggan kale ka soo kaabo marka wax waliba cirka ayay sii mareen haba yaraatee wax dhimay ama wax la oran karo hoos bay u dhaceena ma jirto